فوزي عبد الله علمي كدوكحين كجاعدة دنك برشدة بسم الله الرحمن الرحيم حفيز كديوان قلنت تيم كأنقلت شوقة هرمودية لبدا كلية دود الشريعة iyo education ka ama kulliyada tarbiya iyo kulliyada shariica jaamacada maamulayaasha iyo teamka inagala jooga maahida marti sharafta kale oo ka soo qayb gashay dhammaan macallimiinta iyo maamulka ardaydii horay uga baxday jaamacada oo in badan oo kamid ah muuqanayaan sidoo kalena ardayda hadda dhigata jaamacada ardayda rajeynaysa inay jaamacada ku soo biirto oo hadda ka soo baxday maahida dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu sida idinka muuqda ciwaanka caawa waxaynu leenahay haddii ilaahay idma barnaamij nadwa ah oo aynu ka faa'iideysan doono dakaatiradaas saddexda dhakhtar ay inoo jeedin doonaan in saddex ciwaan oo aad iyo aad muhiim u ah insha Allah waxaan rajaynaynaa idinka iyo aniguba inaynu uga faa'iideysan doono sida ugu habboon ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu inagu anfaco cilmiga aad iyo aad ba asxaabtu u mahadsan yihiin waan rajaynayaa inaynu mar kale ka faa'iideysan doono dakaatirada waxaan uga mahad celinayaa sida quruxda badan ay soo ajiibeen barnaamijkan cilmigoodana ay uga faa'iideynayaan bulshada barnaamijkuna waa inoo furan yahay aad iyo aad ba u mahadsantihiin haatan waxaan ku soo dhaweynayaa عميدك كلية شريعة دكتور أحمد حسن محمد وأنا كان دونا علمي يفائدة إليه كلمتها عن جديد دونا ويكوب كوبنان دونان دكتور سعيان يا دكتور داهر صدق كلمة وكوب كوبن أيام كلن كان كلنا هاي إن كلمتها لكوبه وحبذنا لجو جتنا waxyaabaha aqoonta laga faa'iido ayay ka mid tahay marka koobaad guddoon ku-xigeenka iyo xafiiska waxbarashada iyo diiwaangelinta iyo imtixaanaadka ardayda madaxda macaahidda martida guud ahaan sida guddoomiye ku-xigeenku uu sheegay waan ku soo dhaweynaynaa jaamacadda kulankan qiimaha badan ee ay nagu sharfeen inay nagala soo qayb galaan waxaan rajaynaynaa waxa ugu weyn ee ka faa'iidi doono inuu noqdo inaan isugu nimid kulan cilmi lagu kala faa'iideysanayo laba dhacdo oo aad u waaweyn marka shareecada la fiiriyo dadka muslimiintaana ay aqoon dheer u leeyihiin iyo laba dardaaran oo dadkii hore ee wanaagsanaa ay nooga tageen oo cilmiga xiriir la leh ayaan kelimadeyda ku soo koobaya dhacdada koobaad ee muhiimka ah oo kulligeen aan xusuusanno oon aqoon u leenahay qof kastoo muslimana uu akhriyo uu ka warqabo waa nebiyullaahi aadam calayhi salaam oo aan ka beerannay abuuritaankiisii suurat albaqara waxaa ku soo arooray nebiyullaahi aadam markii la abuuray doodii ay ka gashay malaa'igtu allah tabaaraka wa tacaalaana uu ka jawaabay kadibna lagu sharfay nebiyullaahi aadam dhacdadaas kulligeed waxay xambaarsan tahay waa cilmi doodaas iyo dhacdadaas waxaa ka hadlaya 4 aayadood oo baqara ka mid ah 4ta aayadood ereyga cilmi iyo ereyada carabiga ah ka farcama marka la isku celceliyo tiro badan baa lagu sheegay 4ta aayadood waxaana laga fahmayaa sharafta nabiyullaahi aadam waxa lagu muujiyey oo nebi looga dhigay oo malaa'igta garta looga helay inuu yahay aqoonta ilaahay uu siiyey cilmigii ilaahayna wax laga siiyey dhacdada koobaad taas weeyaan وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. آيات سوحة لغسو قبقبيي قال إني أعلم ما لا تعلمون. آيات أفراد أو قصة ضد ذو أي كل ما نيسنا الله تبارك وتعالى ملائكة وحوسو قبقبيي ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. لبدا آيادود أود حيانا وعلمي آدم لبري أقونتي للسيي ملائكة مركا أيسن كورقبين إلهينا وكشر في كبعدنا إيجا الله بندقي أو سؤالهان لوجو بندقي أو يكجواب وين نبي الله آدم من الله شرفين وكجواب. بعد ذا اللباد وحويه نبينا عليه الصلاة والسلام إلا الدورتو أو الله الشرفو وحا لغو الشرفي لغو الدورتي وقرآن كوي آياته ugu horeeyay ee quraanaha lagu soo dajiyay ee waxyiguna uu ku bilaabanayay oo dadka muslimiinta ay og yihiin cilmi bay xiriir la lahaayeen. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ ayaa quraanka dhan lagu bilaabay aqoon weeyaan. waxa la xiriiriyay aqoonta abuuritaanka bani aadamka إلهي تبارك وتعالى كرم كيس يوينان تيسا أرمها صدام بالحريري. قف مسلمة أن أقول لهين معناه ذو حويه باللوغي آدم أبوريتان كيسا إلى وحي قوسودقي يوحي كدن بيي حرير بدن ولا لهي ما جرتبي كدغانتا. waxaa la isbarbardhigay quraanka dhaxdiisa qofka wax yaqaani iyo qofkan waxba aqoonaysan sinnayn. aqoon waxa yeesha qofka aqligiisa uu shaqeynayo oo dantiisa wanaagsan yaqaana. laba arrimood oo laba taabici dardaaran ahaan ay uga tageen تابع الأورنجري عامر بن شراحيل الشعبي علمي مركو كهضلي أو أرضي ذي سين أو لهضلي وحيدي وحنكوشي يا أبوي وحا أقون يشا قف لبس فله لبت المامود قف له لبت المامود قف إلى هاي السيء بأقون يشا تلمان تكوباد وحويه قف عقليس وشقين أو عاقلة. تلمان طلباتنا وحويه قف عابد أو إلهي كحرا أو واجبات كاللغول هي جذنية لبدا الرماد قف كلن صدي بالليسكا يقائمة علماء كبير قف كستو أقون در أي هيس لبدا ميت كميدا كقلدم بوله. inaga marka inaan ku raali noqono inaan aqoon lahayn macnaheedu waxa weeye waxaan ku raali noqonaynaa inaan cibaado badnayn aqligeennuna uusan si fiican u shaqeynin. waad aragteen dadka dugsiyada hoose ka baxa iyo dadka dugsiyada dhexe u gudbaya badan dadka dugsiyada hoose dhigta badan dadka dugsiyada dhexe dhigta ka yar dugsiyada sare ka yar jaamacadaha ka yar dadka jaamacadaha dhameeya sanad walba ee magister u gudbaa way yar yihiin dadka magister sanad walba dhameeya ee doctora u gudbaana way yar yihiin. qofka aqoonta korsanaya waa qof karti leh waa qof maslaxadiisa yaqaan. dardaaranka labaad oo ku soo gabagabeynaya waxa weeye هشام ابن عروة ابن الزبير nin taabiciya oo Zubayr ibn Awaam waalid u yahay ayaa carruurtiisa la dardaarmay. wuxuu ku yidhi haddaad maanta tihiin da'yarta bulshadooda berri waxaad noqonaysaan kuwa ugu da'waaweyn.
haddaad maanta dhallinyaradii bulshada tihiin berri idinka waxaad noqonaysaan odayaashii bulshada. dadna waxaa ugu liita buu yidhi qof oday ah oo dadka dhan ay moodayaan inuu aqoon iyo garasho leeyahay isaguna aan waxba hayno aqoon aan lahayn. marka waxaan leenahay xarumaha waxbarashada in lagu xidhnaado caqligii oo laga shaqaysiinayay bay ka dhigan tahay. sidaa darteed ku soo dhowaada xaruntan ka mid a xarumaha waxbarashada. wixii laga faa'iidaysan karana ha laga faa'iidaysto. baaraka allaahu fiikum wajuziitum khayran wasala allahuma calaa nabiyina maxamed. Dr. Daahir Maxamuud Nuur wuxuu soo qaadanayaa tusaalayaal ka mid ah jiilasha waxbartay ee muslimka ahaa. Dr. soo dhawow. dhammaan waan salaamayaa macallimiinta maamulka jaamacadda ardayda ka soo qayb gashay hadday ahaan lahayd kuwii hore u dhigan jiray iyo kuwa cusub oo hadda raba inay ku soo biraanba. intaa kadib kelmadda aan caawa ka soo jeedinayno goobtan tacliimiga ah waxay u badnaan doontaa ama tahayba tacliinta iyo ahmiyaddeeda iyo qofku hadduu tacliin leeyahay inuu horumar gaaray. aayado badan iyo axaadiis badan ayaa ka hadlay waxbarashada weliba tan sharciga ah ahmiyaddeeda iyo in ay tahay qofku uu kor ku noqonayo. qof wax bartay iyo qof aan waxba baranaa inaysan isku mid ahayn. qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun buu ilaahay aayad qur-aan ku leeyahay subxaanahu wa tacaala. ma siman yihiin qof wax garanaya oo ku camal falay. aayaddu sida horeedeeda laga fahmaya camal fal ayay u baahan tahay. aman huwa qaanitun aanaa alleyli saajidan waqaa'iman yaxdaru alaakhira wayarjuu raxmata rabbih. ilaahay aayad qur-aan kale wuxuu ku leeyahay yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat. ilaahay kuwa kor wuxuu u qaadaa kuwa alle iyo nebi rumeeyey camal saalixana la yimid. kuwa cilmiga lehna darajaad iyo boosas sarsare ayay ku leeyihiin aakhiro iyo adduunba labadaba. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo waxyiga ka helaya min allaahi subxaanahu wa tacaala ayaa dalbayey in badan in cilmiga loo siyaadiyo. waqul rabbi zidnii cilma ayaa ka mida waxyaalihii ilaahay au ku baryayey. axaadiis badan baa saas oo kale ka hadashay. man salaka dariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allaahu lahu bihi dariiqan ila aljanna. qofkii waddo uu cilmi ku raadinayo qaada ilaahay wuxuu ugu sahalayaa dariiqadaas iyo tacliinta uu raadinayo dariiq ila aljanna. qofku markuu dhinto saa ogtihiinba camalkiisu waa go'aa saddex marka laga reebo. waxaa ka mid ah saddexdaa cilmi aad ka tagtay oo intifaac leh. cilmi aad ka tagtay buug aad qortay qof aad wax u sheegtay iyo wixii la mid ah. marka axaadiistaas oo dhan waxay ka hadlaysaa ahmiyada cilmiga. nebiga calayhi salaatu wasalaam allah subxaanahu wa tacaala ayuu in badan ku baryi jiray allaahuma innii as'aluka cilma naafican. ilaahu cilmi naafica ayaan ku weydiistay. cilmiga naafica waa kan lagu camal falo. dhowr miisaal baan ka soo qaadananaa dhowr shakhsiyad ama dhowr qof oo cilmiga ay barteen ku liibaanay aakhiro iyo adduunba. waxaa ugu horeeya nabigeena maxamed calayhi salaatu wassalaam. iqra' bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra' warabbuka alakram. saddexdaa aayadood baa nebiga ku soo degtay markuu jiray sanadka 4tanaad. waa meesha u horreysay oo cilmiga uu kala kulmay qaaru xira. xadiisku waa dheeraa saxiix bukhaari buu ku jiraa. intaa kadib nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu ku dhaqaaqay amarka la siiyey ilaa kelmadda iqra' waa amar
amarkiibu fulinayay calayhi salaatu wassalaam waddan gaala ayuu ku dhex noolaa oo muxuu ahaa kufaar quraysh dadka dad ugu sokeeya gaalay ahaayeen nebigu dhib badan buu u soo maray dacwada aad u dhib badan 13 sano oo dhib ah aad u dhib badan oo lala dagaalamay oo ay hijroodeen oo 3 sano ay meel ku xirxirnaayeen aan waxba laga gadanayn laga guursanayn dhibaato fara badan ayuu soo maray nabiga calayhi salaatu wasalaam si uu ugu guuleysto hadafkaas mataqaanaa ama yoolkaas hortiisa yaala markii dambe nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu u adkeysan waayay dhibaatadii ka soo raacday magaalada Maka ka jirtay wuxuu sameeyay الهجرة أيو آذي iyo in uu hijroodo magaalada Madiina si uu ugu hijroodo calayhi salaatu wassalaam halkaasoo ay ugu suurta gashay wax badan oo diinta ah in ay ku sameeyo ama ku fuliyo waa garanaysaa nabiga calayhi salaatu wassalaam markii uu horeysay oo Madiina uu tagay tacliinta si loo aasaaso masaajida ayaa laga aasaasaa masaajidkii buu dhisay dadkii buu walaaleeyay hadduu alla ku roonyaa wuxuu sameeyay qaabkii loo mataqaanaa dastuurkii iyo qaabkii lagu kala badbaadi lahaa bulshadaas meesha iskugu timid ilaa meesha yuhuud baa ku noolayd kadib buu halkaa nabiga calayhi salaatu wasalaam diinta ayuu ka difaaci jiray marka tusaale ayuu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam noo yahay qof tacliim bartay oo la amray oo badbaadiyay malaayiin qof oo ilaa inta qiyaamaha laga gaarayo iyo intii quruuna soo dhaaftay tusaale ayuu noo yahay laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun hasana ilaahi subhanahu wa ta'ala asaasu leeyahay rasuulka alle waxa idin kugu sugnaaday ku dayasho wanaagsan marka in lagaga daydo nabiga calayhi salaatu wasalaam xagga cadliga iyo muxuu ahaa cadaaladda nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam awna amri jiray aayadaha quraankaana ay noo sheegaan in allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha xagga waxa laga dayanayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam xagga runta nabi maxamed wuxuu ahaa as-saadiq al-masduuq oo mataqaanaa run sheega isagoo ku amal falaya aayadaha quraanka ya ayyuhalladheena aamanu taqullaha wa kunu ma'a as-saadiqiin nabiga waxa laga dayanayaa tacliinta marka la barto rifqiga iyo naxariista in la isku naxariisto rifqi la sameeyo oo la isku turo فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا قليظ القلب لانفضوا من حولك وعن النبي عليه الصلاة والسلام لو يري هدي أدكان هداد أهان لهيد مد بيعض أدق أما قلبي أدق متقانا ولا كلا ياعي لها مركز رفقك أي النبي قال الله دينا عليه الصلاة والسلام حق الرحمة أي الله بمحمد النبي قال الله دينا عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بو إلهي سبحانه وتعالى ليه نحريص بالله صدره حق كرمك أيا لوجا دينا يا حق وح لوجا دينا يا النبي عليه الصلاة والسلام حق شجاع نمذا يا إنه قفك مسلم كأ أو يه قف آرة أو أنبقين هذا سوق هذا مثال لبعض أو ليباني أو وحبرتي أو متقانا كعمل فلي أو كهر مري أو متقانا دد بدن بدبادي أصلا مثال وحنا أوصل قادرنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ما دام قف ضمر أينا أيتاي حق ضمرك يا حق الرجل لبضة وحلو جبها هي تعلينتها أي برتين إن أي نفط وضنا كو أنفعان دت كان أي كبد باديان سأكتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام مركي كسودك اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق نبي عليه الصلاة والسلام والله قبطي وحال أقره ومتقانا قرآن كأقرب اللي يري سحوق الله قبطي كذب النبي عليه الصلاة والسلام وحوجا سبوا بقي وصور ضي نصوا عبس دريمية وحجري يعني ده هلا الضبولة هلا متقانا مرة هلا يساروا زميلوني بيجري مركا خديجة حاسكي سيد رضي الله عنها وحيتري والله لن يخزيك الله أبدا الله كهو تشلمية ولقى قفك تعلين تبرت waxa looga baahan yahay in uu qofka haduu cabsado aw qaboojiyo oo mataqaana aw dajiyo qofka haduu aw cabsanayo
laba sii cabsiyeeyo laba dhoosaasa kugu dhacay waxba kugu dhacay ee waa la dejiyaa waxay tiri alla ku hoojin mayo ma dhici kadho waliba dhaar bay ma dhahay sabab bayna sheegtay waxyaalaha awsa u hoojinay innaka la tasilu rahim bay tiri waxa xiriirsa adigu rahimka ayaad xiriirisa xooga balkaad u yar rahimka ayaad xiriirisa ayay ku tiri qofku rahimka haduu xiriiriyo qaraabadiis aabihiis iyo hooyadii iyo wixii la mid ah ma hoogayo meel oo xunna looga imaan mayo waxay kaloo tiri wa tasduqul hadith runta ayaad sheegtaa oo been ma sheegtid marka waxa loo baahan yahay qofka muslimka ah oo tacliinta bartay inuu uga daydo Caaisha radiyallahu anha iyo nabiga kaleey salaatu wasalaam inuu runta sheego oo beenta awsa sheegin ya ayyuhalladina aamanu taqullah wa kunu ma'as saadiqin ayay aayad quraana ilaahi subhanahu wa ta'ala kulli ولذلك صادرت النبي وحو كتلمامي خديجة رضي الله عنها إنها كم تهي من خير نساء العالمين عالمين هدومر كتشوق وخير كبضان وحنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول بشاريي بيت يعني عن غيره يوحدة لا عن لهين يعني جنة أي جلسة قري عن غيره يلهين يوحدة له ساسو كلا مثال كصدحات وحن usoo qaadan karaa al-Imam al-Bukhari rahimahullah asna wuxuu kamid ahaa dadkii diinta qaatay oo ku amal falay oo faafiyay wuxuu wariyay ahadiis aad u fara badan ilaa 7500 iyo wax la jira intaas oo xadiisa ayuu xifdisanaa si diinta oo kor uu qaado kitaabka Bukhariga uu leeyahay oo yani sahih al-Bukhariga ah 16 sano ayuu qorayay 16 sano ayuu qorayay waxaana sharaxay kitaabka kutub badan oo uu kamid yahay Fathul Bari asna 25 sano ayuu kitaabka ku sharaxay waxa la mid ah al-Imam al-Muslim asna kitaab sahih uu leeyahay waxa la mid ah al-Ummahat sunan sida Abu Daud iyo Tirmidhi Dulaykuro iyo Ibn Majah iyo Nasa'i waxay ahaayeen dad ama akhyaar cilmi baratay oo dadaashay oo aan kutubtoodii ila الآن aan akhrisanano وإلى قيام الساعة الإمام الشافعي باكمدا dadka dadaalay أول من وضع علم أصول الفقه كتابكي هريي oo cilmiga usulka laga qoray asna الإمام الشافعي ayaa kamida waxa la mid ah Abu Hanifa الإمام مالك أحمد بن حنبل waxay kamid ahaayeen dadka saameynta ku yeeshay bulshadooda kadib marka ay cilmiga ay barteen dadkiina ay gaarsiiyeen waxa kamid ah xagga dumarka hadaan u soo laabtay ilaahay ku anfacay xagga diinta waxa kamid ah Aisha radiyallahu anha ilaahay waxay warisay 2210 xadiis oo ma taqaana ahkaam iyo fiqh iyo wax la mid ah waxa kamid ah Darda ba kamid ah Salama kamid ah aad bay u fara badan yihiin intaas oo dhan hadaan soo duuduubo macnaheedu waxa weeye qofka muslimka ah hadii uu wax barto saameynta iyo ma taqaana iyo bedelka uu ku sameeynayo mujtamaciisa inaasan ku soo gabagabeynaya sallallahu ala nabiyina muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in dhamaan akhyaarta meesha isugu timid maamulka jaamacadda iyo macallimiinta maamulada macaahidda macallimiinta iskuulada ardayda macaahidda iyo dugsiyada sare waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi warkii oo dhan dakaatiradii culimada hore u dhameysay laakiin insha Allah waxaan rabaa qaybta waxbarashada dumarka inaan wax ka taataabto insha Allah waqtigan aad buu noogu yar yahay إلهي سبحانه وتعالى وحوير قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب إذن علمي قبلها وحين ولسي ميهن رقا وإلهي سبحانه وتعالى ميلا بضن أو حاجرته رقي دمر كيكوك لدويهن تاسنا أي مصالح وطهي رقي دمر كالوضبا لكن علمي مركي تهي إن لو سميهي نبينا صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأتل مامي ويري دينتي إنك قات من هذه الحميرة تاس مركو حين تسنيسا أقونت إنا إنك لهين رقي دمر مركي الله دهم مركي علمي وحال لها كلمة سحيكا كوبنتها يسد حرف
kan u horeeyo ah cayn iyo kan labaad oo ah laam iyo kan saddexaad oo ah miim xarafka cayn wuxuu u dhigan yahay baa la dhahaa alculuw ama sarrayn iyo kor ahaansho ilaahayna waa tii uu lahaa yarfacu allahu aladiina aamanuu minkum waaladiina uutuu lcilma darajaat xarafka miimna wuxuu u dhigan yahay baa la dhahaa boqortooyo iyo milkiyad iyo maxaa la dhahaayey adeeg waa aragnay madaxda oo kale inta badan dadku way maquuniyaan soo ma ama amaraa la siiyaa dikreetooyin waxba iska soo dababaxo laakiin culummada inta badan kitaabkooday la kala baxaan masaajiday fariistaan ama maxaa la dhahaay way khudbeeyaan kadibna waa la dhegaystaa taasna waa ilaahay subxaanahu watacaala sharafta uu cilmiga siiyey iyo haybadiisa laamkana waxaa la dhahaa waa alliin cafwan xarafka laamka ka soo booday oo ah dabacsanaan imaam ashaafici radiallahu canhu waa tii uu lahaa qofkii marka qofku uu bartuu yidhi taaka cilmiga wuxuu ka qaadaa kibir saas oo kale oraah uu lahaa uu kusoo gabagabaynaya markuu qofku wax badan bartana ama wax badan aan barta aniga shaafici ahna caraftu annii jaahil waxaanba ogaaday markaas in aan jahli ahay idan kullamaa qofka uu cilmiga aad usii dhexgalo kullamaa uu bato dabacsanaantiisa iyo tawaaduciisa iyo hambalnimadiisa ay sii badato laakiin kullamaa qofka uu cilmiga ku yaryahayna uu maxaa la dhahaayey kibirka iyo ku badan yahay walciyaadu billaah waana sababti keentay ibliis lacnatullaahi calayh in maxaa la dhahaayey uu mutaysto cadaabkaas ciqaabkaas markaan usoo daadegno marka cinwaankeenna ah alfataat almuslima islaamka ka hor waa garanaynaa taariikhda gabdhaha siday ahayd iyo xuquuqdooda sidii loo duudsiin jiray iyo dhammaan maxaa la dhahaa waxyaabihii ay la kulmi jireen ilaa xeer ay gaareen in laga wiswiso وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب إن إله سبحانه وتعالى وليه حلق جاهلية لكن إسلام كمركو يمد إن دمر كريرين أصلك قاضي إسلام مركاسنا أي محل هاي مكان علوس إسلام كأكو يشان أين أقوه الرئيسي موقف كي دكتور ظاهر ونوشي وها السيدة خديجة رضي الله عنها in ay ahayd qofkii ugu horeeyay ee rasuulka sallallahu alayhi wasallam u gargaaray laxdadii waxiga uu ku cusbaa ama la faray in uu wax akhriyo ama uu argagaxay ama waxiga uu bilowday halkaasna waxaan ka dareemaynaa in cilmiga uunan kala lahayn rag iyo dumar sidoo kale waxaa jirtay gabay carbeed oo dhahay al-ummu madrasa idaa acdadtaha acdadta shacban tayiba al-acraaq kulligan waa wada xifdisanahay laakiin markii la dhuuxo waxay tahay macnaheedu inuu yahay hooyada inay tahay madrasa iskuulka iyo soo saaraa waxaa ka soo baxo ama hoy uu yahay intaasoo jiil oo ah mutacalimiin idan hal gabar qofkii waxbara inay la mid tahay bulshada dhammaan inay waxbaratay waxay dhahaan bulshada barkeed waa gabar barka kalena ayadaa dhammaystirto halkaas marka ay maraysa marka waxaa jirto ilaahay subxaanahu watacaala inuu leeyahay almu'minuuna waalmu'minaatu بعضهم أولياء بعض إن أنا لك لسارين اللي يري مؤمنون يا مؤمنين أيدي كلا أهيد إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كل جودنا إن لو سمي هاي إلهي ذكر جيسا عبادة يا علم جاي دمان أقونتا مركا إن بدن القرآن كلا تلمامي وهو استعمال لفظ أمن قفكي أو يكون جيران رجع الدمر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة إلهي سبحانه وتعالى ولها إذن أنت صدق مركب حين تسنيسا إن أنا رجع يدمرك لك لهين علمي يا قونتا لكن هرقلبات كأنه وشكيان إسلامكم حدود المية قبلها لماذا وحال فرينا حجابتان إسلامك محل هاي دحالكم حوي رمالها قاركودنا وحيل هاي ربع مالها ثم بيلها والويري إذن ميقال لو بديي أيضا إلا فيريو نلوغو شاكي إذن كل هذا وحيت هاي إنay rabaan madaakhil iyo meel ay ka soo galaan laakiin islaamku uu aad u sharfay mar walba la fiiriyo email kastana in ay ayada tahay hiya raabix al-ula ama qofka maxaa la dhahay ribax wadaha inay mar walba gabadha muslimada ay tahay ilaahina subhanahu wa ta'ala uu karaameeyay waxaa jirta marka fursado aan haysano oo badan oo aan wax ku baran karno oo ay ka mid tahay waxaa la dhahaa dakaaga ama aqliga rag iyo dumarka ilaahay subhanahu wa ta'ala uu simaa awoodahana asaga qaybiyo laakiin maca dalika waxa la dhahaa qaybta maskaxda laga xukumo erayada ama alfaada aan ku hadalna ay ka soo baxaan
ragga waxaa la dhahaa waxay ku leeyihiin dhinaca bidix bas baynamaa dumarkana ay ku leeyihiin bidixda iyo midigtaba oo laga yaabo in halkii daqiiqo intaasoo kelmadood ama eray ay sheegi karto taasna waa malaka dheer ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey sidoo kale waxaa la dhahaa dareenka ama qofka inuu wax fahmo markiiba haddii hadda ay fawsiya noo soo gasho waxaa laga yaabaa hoolka hadday fiiriso ama waynala joogtaa inay dhahdo intaasu wax baa ka khaldan baynamaa raggana ayna fahmin idan waxaa la dhahaa waxindhaynta iyo maxaa la dhahaaye ixsaaska waxa loo yaqaano inay aad ugu badan yahay dumarka sidoo kale waxaa la dhahaa luuqadaha barashadooda inta badan ragga ayaga uga badan taasna waa malakaad iyo awoodo ilaahay uu qaybiyey waxaan arkaynaa gabadha inay awooddo hal mar inay taleefon ku hadasho cashar inay akhrisato cuntana inay kariso fii nafsi lahda halkaas daqiiqo gudahood in ay dhowr waxyaabood isku samayn karto baynamaa laga yaabo qofka ragga ah in uu hal dhinac tarkiiskiisa iyo maskaxdiisa uu u jeedsamay lidaalika dumarka waxaa la dhahaa waxaa ku badan caadifadda iyo laablakaca baynamaa ayagana ay ragga caqliga ay ku shaqaystaan taasna ay tahay qudraad ilaahi subxaanahu watacaala u qaybiyo idan fursadahaasoo kale inay gabdhaha ka faa'iidaystaan in maanta waxbarashadii meel walba ay mutawafir ku tahay hadday tahay online hadday tahay jaamacadihii hadday tahay madaaristii in intaasoo dhan aan heli karna gabdhaha haddaan nahay sidoo kale waxaa la dhahaa in la heli karo qudwa xasana ay ugu horeyso sayida caaisha radiallahu canha saxaabiyaadkii kale ilaa casrigan in la heli karo qudwaad iyo gabdho aan ku dayin karno aqoontan heer sare ka gaaray aan heli karno sidaas darteed waxaa loo baahan yahay baa layidhi gabdhaha marka in la baro bal awoodahooda in ay daraaseeyaan intay la egyihiin maxay awoodo haystaan maxay fursado haystaan dugsiyada hoose waxaa la dhahaa boqolkiiba 47 48 ilaa 50 waa la sheegaa in ay yihiin boqolkiiba gabdho laakiin sida doctor Axmed uu noo sheegay baynamaa kor la sii aadaba in ay sii yaraato dadkii horey sii aaday taasna inay tahay caqabadaha gabdhaha haysto sidoo kale caqabadaha waxaa ka mid ah in ayaga naftooda caqabad ay ku yihiin oo gabdhaha ay aaminsan yihiin waxba lama samayn karo waxba lama qaban karo maxaa la dhahay asaga hadda waa wiil oo muxuu ahaay guriga kama shaqeeyo oo kale mubariraad iska basiid ama aad u yaryar in ay gabdhaha daliishadaan sidoo kale waxaa ka mid ah caqabadaha gabdhaha haysto mujtamaca Soomaaliga ah inta badan in ay gabdhaha liidaan culimada ay ga raali hadaan iyo ragga inta badan gabdhaha waxba looma ogola Sooma waa la duudsiyay inta badan waxa la dhahaa waa iska gabar waa mid soo wareertay oo xiraamad ah hadday maamul iyo meelo sare gaartana iyadana Allah u naxariisto idan in ay tahay gabdhahana in laga daayo colaada gabdhahana waxaan rabnaa ay kor isu soo qaadaan aqoonta iyo tacliimta iyo waxbarashada oo dhan waxay u soo noqonaysaa maxaa la dhahaa bulshada sidoo kale waxay fawsiyo ugu bishaareysay jaamacadda 7 gabdhood u sareysay inay gabdho ahaayeen 7 qof u sareysay jaamacadda inay gabdho ahaayeen taasna waa bishaaro gabdhaha u sheegeen insha Allah sidoo kalena la rabo in nashaadaadka jaamacadda ka socdo iyo hawlaha dhammaan in ay ka qayb qaataan idan caqabadahaas oo dhan marka waxa looga gudbi karaa koow in ilaahay subxaanahu wa ta'ala cilmiga marka aan baranayno ilaahay dartiis uu naga yahay ilaahina uu leeyahay wattaqullaha wa yuallimukumullah inta badan cilmiga iyo aqoonta inay isku xiran yihiin oo kullama qofku ilaahay u dhawaado ilaahayna uu furo maxaa la dhahaayay albaabadiisa waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra idan in ay tahay sirta meesha ay ku duugan tahay sida ay tahay marba cilaaqada ilaahay subxaanahu wa ta'ala aan la leenahay kullama aan cilmiga baranana in la rabo inuu noo siyaadiyo tawaaduc iyo sharaf iyo maxaa la dhahaayay ciza ee aanan laga qaadin quruurkana waa garanaynaa tusaalaha koowaad labaad saddexaad waxaa noo ah ibliis iyo shaytaan halka ay dhigteen namaadij marka inkastoo culimmada hore ay sheegeen sayida caaisha radiallahu canha axaadiida ay warisay مواقف بدن وقبل أي كقيب قاتين أم سلمة وكلام موقف كذا أي كقيب قادتي أنت صار دن مركب حال الربع إن أيدي رجلين النقطة قبلها صوماليات أودها إلهي سبحانه وتعالى أوسيين أي كفا إيديستان وقدام بيننا وحلا هاي وحكسوا دواتان قع مفرن خلك وحبرشة أي كبل لعبتنا إن أي تهاي وحلو يقانو إن قفك كو شريعة وبرتاء دين إلهي نودواده marka labaadna ay tahay in la helo tababar macallin oo dhameystiran waa sababta ama sirta boorka noogu qoran labada kuliyadood ay mataanaha u yihiin ama ay u walaaloobeen
وجزاكم الله خيرا طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا بإذن الله السلام عليكم دوينيا فرتون عبد الرحمن آدن oo ku hadlaysa afka ardadii hore ee jaacada ka qala jabisay magacaygu waa fartuun cabdiraxmaan aadan ka baxda jaamacadda boosaaso faraceeda garoowe kulliyad shareeca oo diraasaat islaamiya caaw farxad weyn bay ii tahay inaan mar labaad kusoo laabtay jaamacadaydii xiisaaba igu jiraba inaan dib usoo bilaabo marra saaniya intaa kadib wax badan dhihi maayo horta waxaan dhahayaa jaamacadda boosaaso waa hoyga horumarta iyo aqoonta waa hoyga tacliimta iyo hiigsiga wax kastana waxaa ku cibro qaadataa itusoo itaabsii waxaa arkaysaa bulshadeena khaasatan garoowe dadka horumarka waaweyn oo muuqdo ka sameeyay rag iyo dumar inay u badan yihiin ardayda ka baxda jaamacadda boosaaso ayu kuliyadu doona ha ahaado waxayna ku xiran tahay qofka iyo weliba dadka soo saaray marka anigu waxaan dhihi karaa jaamacadda boosaaso waxay isku darsatay aqoon iyo tayo taasna waxaan u sababaynayaa dadka maamulka oo aad u yaqaano maamulka la dhaqanka ardayda soo dhaweynta iyo weliba inay keenaan dad khubara oo waxaan ay dadka barayaan kana muuqda ficiliyan iyo qowliyan qofka u bari kara intaasna agama tagaanay 40 saac dhiirigelin iyo garab istaagan ay ku wadaan ay soo xusayaan og yihiin arday kasta meesha uu ku dambeeyay bulshada markii loo gudbanay ardayga ayaa iska dhigi kara qofka soo baxayo ama gabar ahow ama wiil ahow ama shareeco baro oo hal ugu dhaho dugsi quraanka un baa sii balbalaarinaysa shareeco maxaa laga baranayaa kadibna xadaana yar baa furanaysa wiilkina masaajid buu aadayaa war cid kaama xigtiina bulshadaada u adeegtid ayuu kuliyad baro waajib ka saaran qof dhalinyaro tahay Soomaaliyeed aqoon-yahana dalkan iyo dadkan adeeg u sugayaan China Hindiya loogama imaanayo in wixii lagu baray aad dalkan iyo dadkan ku celisid naftaada waa waajib saaran waalidiinta waxay u yihiin mirihii ay soo gurteen macallimiintaada iyo hooyga ka soo baxdaan waxay u noqonaysaa sharaf iyo karaamo marka waxaan dhahayaa ardayda cusub ku soo dhawaada hooyga tacliinta iyo horumarka jaamacadda boosaaso dad aqoon-yahano Soomaaliyeed baa noqon doontaan hal dardaaran qofka aqoon-yahanka waa qofka yaqaano rabbigii suu ula kulmi lahaa muxuu amray muxuu ka reebay iyo aakhira muxuu ku badbaadi lahaa adduunkiisana u shaqaysta walaa tansa nasiibaka min addunya baliid adduunkaagana inaadan ilaawin marka dhammaan ardayda waxa u dardaarmayaa in aad aqoonta sii wadaan aqoontu lagama weynaado aqoontu waa hooyga kaliya ee dadka aad kaga soocnaan kartid waa waxa kaliya ee dadka aad kaga duwanaan kartid ilaahina wuxuu yiri ma sino dadka cilmiga leh iyo dadka jaahiliinta inaanu cilmiga shareecada iyo cilmiga maadiga labadaba isku barano waa muhiim si ay u soo baxdo gabar dhisan qoys dhisan bulsho dhisan iyo qaran dhisan saa kadibna ay bulshadeena u hagaagto dhammaantiin waxaa idin leeyahay ku soo dhawaada gacmo furan qalbi faraxsan iyo jaamacadda boosaaso dhammaan maamulka iyo macallimiintayda waxay soo bartayna waa u mahadcelinayaa shukran waa mahadsantiin dhageysigiina qora maamulaha macadka raashidaad ustaad burhaan oo ku hadlaya afka macaahida ustaadii soo dhaw arday hore oo jaamacadda ka baxan ahaa intaa kadib insha Allah waxaan u soo istaagay anoo ku hadlayo magaca macaahida waayo waxaan meesha ka arkaa hadartan waayo waxaan ku hadli doonaa insha Allah macaahida Soomaaliya oo dhan waxaan u jeedaa arday ka soo baxay macaahid kala duwan Muqdisho iyo Hargeysa iyo meelo kala duwan sidaa daraadeed waxaan ku hadlayaa insha Allah magaca macaahida Soomaaliya oo dhan insha Allah ta'ala kelmaday waxay noqonaysaa ashukri inaan u mahadcelino jaamacadda Boosaaso Nabi Muhammad alayhi salaam wuxuu yiri xadiiska Aisha man lam yashkur an-nas la yashkuru Allah qofaan dadka u shukrin ilaahayna uma shukrinayo insha Allah ta'ala jaamacadda Boosaaso University aad bay u mahadsantahay fursadan qaaliga ay siisay ardayda ilaahay wa subhanahu wa ta'ala miisaanka aakhir xasanaadka Allah u saaro maadaama ay tahay jaamacaddu jaamacad ay hogaaminayaan dad aad u wanaagsan oo doctora ah laakiin ardayda waxaan u sheegayaa jaamacadda Boosaaso in ay tahay jaamacadda ugu wanaagsan waxaad ka dareemi kartaa ama aad ka arki kartaan jaanisiyada ay idin siinayso waxaad ka arki kartaan maxaa la yiraahdaa barnaamijyada ay wado
وحاوي فقس على هذا تكون علامة تاكا قياس خات إن شاء الله تعالى مركز جامعات آد بان أبقوادين يا وين مهسيهين حوغا هدان كهالو جامعات ما دام معلمين تهريرها أي فريان وأن أحسنها إن شاء الله تعالى وحاوي جامعات كلية بان هرتسود ما شاء الله معلمين كليا معهن وهويين وأبيال دون والبوي يحاوي دد وناكسن ويه وحاوي إن شاء الله تعالى أرضيدا نصيبك أوها شمال أرضيدا كلا وحن كل دار ميا جامعات إنسان إلوبين ما دام مجالات هذا دتك جرو كنول بقولكي سجاش السجال عندي كروحة دكتان جامعات بوساسو وحنا تا كنتي يعني حضارة إلي مادين مقدشة ماله بدن بانصامبر ونجوج جري لكن دتك حضارة بدن غير بوساسو ولا ما أنا ناركن سيادرات إن شاء الله تعالى برنامجك برنامجك أن يدين شيء دون حنقن دونا جامعاتنا الإلوين دكتورك وحى وشيء قفك عقلك له وقفك علمك أقونت سيوته سيادرات يعني وحى كتلك إن شاء الله تعالى أنت أن جانس إلهي إيسيو إن جامعاتك كوت كل هذا كلا دوان أرضي ذي مجال ذي أمدنا وحنوجب بورينيا جامعات إن لقى فائدة إن شاء الله تعالى maamulka jaamacadda Boosaaso Ustaad Fawziya iyo maamulka dhammaan iyo macallimiinta waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran ilaahay subhanahu wa ta'ala idinka abaalmariyo fursad wanaagsan oo qiimo badan oo maaragtay waxtar leh ayaad noo soo bandhigteen waxaan ilaahay ka baryaynaa subhanahu wa ta'ala inuu naga dhigo kuwii ka faa'iideysta iyaga naftooda ku anfaca bulshadooda insha Allah ta'ala ku celiya إلهي بان كبرنا سبحانه وتعالى وإذن مهل علينا قرب كينا إن شاء الله تعالى يجا أنت صان الله هاي مامورك جامعة بلن قادنا أنت أود يده إن قف كستو جامعة مصابيرة وهل دون أقوام كفلا أو دميسترا هذه عاد بأمهات سنتين مركل وحنا أمهات علينا دكاترة سيد قروح بدن دراسات كنا وجود شيء سي علم جالسنا وحنا رجالنا إن كفائدة سندونه وحنا بدن وحنا كفهم الدكتور أيان عاوة waxay tiri gabdhaha waa ka maskax badan yihiin insha Allah waxaan rajaynaynaa wax badan oo tusaalayaalan anigu xaqiiqatan waa hayaa qalin jabintii u dambeysay jaamacadda 10kii arday oo ugu sareeyay 7 kamid ah gabdhay ahaayeen marka insha Allah waxaan rajaynaynaa awoodda ay doctoressadu sheegtay maybe in ay qayb ka ahayd aad baa u mahadsantihiin gacmo furan baa idinku soo dhaweynaynaa fursado tiro badan إن شاء الله ورجعنا إلى هالي دون تانين هذه أدبا مهسنتين برنامجكم وينوصل لماذا خير بدن